bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha barnaamijkeena galabta waxaynu ku soo qaadan doonaa natiijada kulamadii semifinalka ee shalay la ciyaaray ee Euro 2020 iyo Copa America sidoo kale barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe inoo saar muuqaalkana like inoo dheh mahadsanid ayna ku bilawnay xalay ayaa la ciyaaray kulankii ugu horeeyay ee semifinalka Euro 2020 xulka wadankaasi Italy ayaa wajahay xulka wadankaasi Spain ciyaarta oo ku bilaabatay si aad u xiiso badan ayaa waxay u muuqatay in xulka Talyaaniga laga awood badnaan karo maadaama xulka Spain uu ahaa xulka inta badan kubadda maamulayay intii lagu guda jiray Euro 2020 ciyaarihii dhammaan ay dheeleen xulka Talyaaniga ayaa muujinayay inuu ahaa mid ka maamulay ciyaarta balse xalay xulka Spain ayaa inta badan ciyaarta gacanta ku hayay halka xulka Talyaanigana uu ahaa qaab difaaca kuwa ciyaaraya qaybtii labaad ee ciyaarta ayuu xulka Talyaaniga isu bedelay qaabkii aynu ku naqaanay ee tooska ahaa waxa ayna abuureen jaanis aad u culus ciyaaryahanka kooxda Juventus Chiesa ayaa u dhaliyay goolka koowaad xulka Talyaaniga waxaana ciyaarta xulka Spain barbardhac uga dhigay weeraryahanka kooxda Juventus Alvaro Morata daqiiqadii dheeraadka ahaa ee ciyaarta ayaa kusoo gabagabowday gool iyo gool waxaana la isla aaday gool kulaad xulka wadankaasi Talyaaniga ayaa ugu dambeyn 4 gool iyo 2 ku garaacay xulka wadankaasi Spain waxaana sidaas ugu gudbeen finaalaha Euro 2020 xulka wadankaasi England iyo Denmark ayaa maanta ciyaari doona waxa ayna labadooda kii soo baxay finalka ku wajihi doonaan xulka wadankaasi Talyaaniga sidoo kale xalay ayaa la ciyaaray kulankii labaad ee semifinalka Copa America xulka wadankaasi Argentina ayaa la ciyaaray xulka wadankaasi Colombia waxa ayna ciyaarta ku soo gabagabowday gool iyo gool isla rigorotur ayaa la isla aaday semifinalka Copa America waxaana 3 gool iyo 2 ay goosho ku raacday xulka wadankaasi Argentina xulka wadankaasi Argentina ayaa wajihi doona Brazil finalka Copa America waxa uu noqon doona kulan aad u xiiso badan markana aynu gudubno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa mar kale u dhaqaaqday saxiixa qadka dhexe ee kooxda Olympic Lyon iyo xulka France Jose Mawa ciyaaryahankan qadka dhexe ayaa si weyn loola xiriirinayay ku biiristiisa garoonka Emirates xil ciyaareedkii la soo dhaafay waxaase kooxda Gunners ay ku guuldareysatay in ay heshiis la gaarto naadiga reer France ee Olympic Lyon kooxda Lyon ayaa duldhigtay xidigeeda qiimo dhan 50 milyan oo euro xil ciyaareedkii la soo dhaafay balse haatan ay kooxda Arsenal saxiixa Jose Mawa ay ku heli kartaa wax ka yar kala bar lacagtaasi xidiga reer France ayaa filayay in kooxdiisa ay u soo bixi doonto horyaalka Champions League balse kooxda reer France ayaa kulamadkii ugu dambeeyay ku guuldareysatay inay u soo baxdo qaaradda Yurub ciyaaryahanka ayaa sidoo kale ku xumaaday in kooxda ay fasaxday weeraryahanka reer Holland ee Depay kaasoo si bilaash ah ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona warar shalay soo baxaya in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay dalab 20 milyan oo euro ah ay ka gudbisay ciyaaryahanka balse the AFC PL oo ah Twitter xoga badan ka qora kooxda Arsenal ayaa tilmaamay in wax dalab rasmi ah naadiga Gunners aysan weli ka gudbin ciyaaryahanka reer France balse weli uu jiro xiise aad u badan oo tababare Mikel Arteta u hayo Jose Mawa sidoo kale shalay ayaa warar ka soo baxay France waxa ay tilmaamayeen in Jose Mawa uu ka diiday kooxda reer France inuu ka qayb qaato tababarka ciyaartoyda sida daraadeedna uu ku riixayo kooxdiisa inay iibiso xil ciyaareedkani balse ciyaaryahanka ayaa Twitterkiisa xalay ku beeniyay warkaas waxa uu tilmaamay in isbuucii la soo dhaafo oo dhan uu xanuunsanaa isla markaana isbitaal jiifay waxa uu tilmaamay in xaaladiisa hadda ay soo reenayso uu mar dhow ku laaban doono xirada tababarka ee kooxda Olympic Lyon kooxda Arsenal ayaa u muuqata kuwa raadinaya qad dhexe waxaan xil ciyaareedkan loo badinayaa in ciyaaryahanka qadka dhexe ee xulka Switzerland iyo kooxdaasi Grand Shaka uu ka hayaa manaadiga isla markaana uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee AS Roma dhanka kalena tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jurgen Klopp ayaa naadigiisa ka codsaday in ay u sameeyaan 3 saxiix xil ciyaareedkani sida ay qorday The Mirror tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jurgen Klopp ayaa maamulka naadigiisa ka codsaday saxiixa xidigaha Yuri Tielemans
Renato Sanchez iyo Kingsley Coman. kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ka cararaysa in ku dhacdo xaaladii xil ciyaareedkii hore oo kale markii ciyaartoyda kooxda badankood uu dhaawac soo gaaray naadigana ay ku adkaatay in garoonka ay la yimaadaan wax ka badan 13 ciyaartoy. tababaraha reer Jarmal ayaa hadse doonaya sidoo kale in uu qadkiisa dhexe xoojiyo, waxaana uu lumiyay qadkii dhexe ee xulka Holland Wijnaldum oo si bilaash ah ugu biiray kooxda Paris Saint-Germain. saxiixa xidiga Yuri Tielemans ayaa noqon doona mid aad u adag maadaama kooxda kubadda cagta ee Leicester City ay doonayso lacag ku dhow 60 milyan oo euro, halka ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara xulka France iyo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ee Coleman uusan si fudud uga hayaamin karin kooxda reer German. waxaan isbuucii hore naadiga Bayern Munich ay tilmaameen in kooxdii doonaysa ciyaaryahankani ay waajib ku tahay inay bixiso 90 milyan oo euro. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa xaqiijisay in daafaceeda bidix ee Junior Firpo uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Leeds United. kooxda reer Catalan ayaa ka heli doonta kooxda reer England 15 milyan oo euro. waxaan sidoo kale heshiiska ku jiro qodob tilmaamaya in haddii kooxda kubadda cagta ee Leeds ciyaaryahankan iibiso ay Barcelona heli doonto 20% qiimaha ay hesho kooxda kubadda cagta ee Leeds United. Firpo ayaa u saftay kooxdiisa 41 kulan 2 xil ciyaareed oo ku sugnaa, waxa uuna u dhaliyay kaliya 2 gool. sidoo kale wararka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaan ku jirnay. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay wada hadal la furtay ciyaaryahanka kooxda Barcelona ay doonaysay inay heshiiskiisa baabi'iso ee Miralem Pjanic. sida ay qortay El Gol Digital, kooxda Barcelona ciyaaryahanka u ciyaara ee Miralem Pjanic ayaa doonaya inuu ku biiro kooxda ay xifaaltamaan kooxda reer Catalan ee Madrid xagaagan. tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa taageero weyn u ah xidigani, waxa uu qaab ciyaareedkiisa la socday intii uu ku sugnaa horyaalka Talyaaniga. Pjanic ayaa kaga soo biiray xagaagii la soo dhaafay kooxda Barcelona kooxda Juventus, waxa aan heshiis isweydaarso labada naadi dhexmaray oo ciyaaryahankan kaga mid noqday naadiga ku dhashay Camp Nou, balse 10 bilood kadib ku biiridiisa Camp Nou ayay u muuqataa in ciyaaryahankan uusan wax qiimaha ka lahayn kooxda kubadda cagta ee Barcelona. tababaraha reer Holland ee Ronald Koeman ayaa ka doorbidaya xidigaha Sergio Busquets, Frank de Jong, Pedri iyo Elias Moriba, waxaana xidigii hore ee kooxaha Roma iyo Juventus uu haatan ku qasban yahay inuu raadsado koox cusub. sidoo kale Barcelona ayaa isbuucan la tilmaamayay inay diyaar u tahay in ciyaaryahankan heshiiskiisa ay fasakhdo isla markaana ay si bilaash ah ku dirto, waxaana midaas ay fududeyn kartaa haddii dalabkan la sheegay in kooxda Real Madrid xidigan uu ku doonayso mid dhab uu yahay in kooxda Real ay xidigan ku hesho si bilaash ah. dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa kabtanka kooxda RB Leipzig Marcel Sabitzer, sida ay qorayaan warar ka imaanaya dalkaasi Jarmalka. Milan News oo soo qaadanaysa warar ay ka helayso Jarmalka ayaa tilmaamtay maanta in ciyaaryahankani oo kooxda AC Milan ay horey u doonaysay inay bedel uga dhigto Hakan Çalhanoğlu uu haatan dalab rasmi ah ka helayo kooxda Borussia Dortmund. kooxda kubadda cagta ee Milan ayaa Sabitzer raadinaysa xagaagan oo dhan, waxa uuna ka mid ahaa ciyaartoyda Maldini iyo Masara ay u calaamadeeyeen inuu bedel u noqdo xidiga reer Turkiga sida bilaashka ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. ciyaaryahankan uu heshiiskiisu ka harsan yahay kaliya hal sano ayaa lagu heli karaa 20 milyan oo euro, waana sababta kooxda Dortmund ay si degdeg ah ugu soo biirtay tartanka ciyaaryahankani. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Dortmund ayaa doonaysa ciyaaryahanka kooxda Leipzig kabtankan kala ciyaara ee Marcel Halsberg, kaasoo sidoo kale heshiiskiisu dhacay xagaagan, waxaana lagu heli karaa 10 milyan oo euro. waxayna taasi la mid tahay in kooxda Borussia Dortmund ay diyaar u tahay in 30 milyan ay siiso kooxda ku xifaaltamaan horyaalka Jarmalka si ay uga hesho labadan xidig. maamulihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Las Palmas Maiorini ayaa tilmaamay in kooxda kubadda cagta ee AC Milan ay isdhaafisay fursad ay kula saxiixan kartay xidiga haatan qadka dhexe oo ka ciyaara kooxda Barcelona iyo xulka Spain ee Pedri. maamulahan oo hore uga tirsanaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa tilmaamay in kooxdiisii hore uu ku wargeliyay qaab ciyaareedka xidigan iyo tayadiisa, waxa uuna sheegay in kooxda kubadda cagta ee AC Milan ay khubaro u soo dirtay magaalada Malaga si ay u fiirsadaan xidigan, balse imaanshahooda ayaa noqday mid soo daahay kadib kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo si degdeg ah heshiiskaasi ku dhamaystirtay. ciyaaryahankan oo ay adkaan lahayd ayuu yiri in Milan ay si fudud ku qaadato maadaama uu ahaa ciyaaryahan
ciyaaryahan da'yar isla markaana awilii xulkiisa matelin ayaa haddana Barcelona ahayd kooxda ugu fiican ee uu ku biiri karo markaasi maadaama kooxda Blaugrana ay haysato akademiyaadka ugu fiican wadankaasi Spain mid kamid ah sida daradeedna uu xidigaas ay u fududaan karto kamid noqoshadiisa xulka wadankaasi Spain dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa lagu waramayaa in ay gudbisay dalabkeedii ugu horeeyay oo ay gudoonayso 30 jirka xulka France iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona Antoine Griezmann sida ay daawacday jariirada Spain ka soo baxday ee Fichajes Manchester City ayaa sameysay dhaqaaqeedii ugu horeeyay oo ay ku doonayso xagaagan inay ku hesho saxiixa Antoine Griezmann kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa u soo bandhigtay dhigeeda Barcelona heshiis isku bedelashay ciyaartooy ah iyadoo kooxda kubadda cagta ee City ay diyaar u tahay Aymar Laporte inay u fasaxdo ku biirista kooxda Barcelona iyadoo weliba raaci doonto qarash dhan 20 milyan oo euro si ay u hesho Antoine Griezmann ayaa kaga soo biiray kooxda Barcelona dhigooda Atletico Madrid 2019 waxaan xidigan uu kooxda Barcelona ugu fadhiyaa lacag ku dhow 100 milyan oo euro xil ciyaareedkii soo gudbay ee 2020 iyo 2021 ayuu ciyaaryahankan si wacan ku bilowday horyaalka wadankaasi Spain waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 20 gool isagoo ka qayb qaatay 13 gole 51 kulan oo uu ciyaaray dhammaan kulamada sidaas oo ay jirto ayaa haddana waxa la sheegayaa in kooxda kubadda cagta ee Barcelona maamulkeeda ay diyaar u yihiin in ay fasaxaan xidigan maadaama kooxda ay haysato dhaqaale xumo kooxda Barcelona ayaa dhexda ka taagan xaalad adag maadaama ciyaartooyda kooxdaasi ay qaataan mushaar aad u badan waxaan ilaa iyo hadda kooxdan u suurtagelin in ay diiwaan geliso dhammaan ciyaartooydii ay la soo wareegtay xil ciyaareedkan kooxda Barcelona ay qasab ku tahay in ay jirto ciyaartooyda mushaarka ugu badan ka qaata naadiga si ay ugu suurta gasho in heshiis cusub ay siiyaan Lionel Messi sidoo kalena ay diiwaan geliyaan dhammaan ciyaartooydii ay la soo wareegeen xil ciyaareedkan kooxda Manchester City ayaa ku jirta raadinta weeraryahan cusub maadaama ciyaaryahankoodii hore ee reer Argentina Sergio Aguero uu si bilaash ugu biiray kooxda Barcelona waxaana sidoo kale kooxda Manchester City ku adkaaday wadahadaladii ay kula jirtay dhigooda Tottenham iyagoo oo doonayay kabtanka kooxdaasi ee Harry Kane maamulka kooxda Tottenham ayaa codsanaya lacag aan caqligal ahayn iyadoo kooxda kubadda cagta ee Manchester City aysan diyaar u ahayn inay bixiso 150 milyan oo pound si ay u hesho weeraryahankaasi tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola ayaa hore u tilmaamay in ay adkaan doonto kooxdiisa inay hesho weeraryahan cusub xil ciyaareedka dambe maadaama weeraryahanada tayada leh ee qaaradda Yurub dhamaantood ay ku kacayaan qiimo aad u sareeya ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa heshay war naxdin geliyay maadaama daafaceedii xulka Brazil iyo kooxdaasi ee Gabriel Magalhaes lagu soo waramaya in laga saaray ciyaartooyda xulka Brazil ku matali doonta Olimbikada ee sanadkan ka dhacaysa wadankaasi Japan daafaca reer Brazil ayaa lagu soo waramayaa in dhaawaca jilibka uu soo gaaray sidaas daraadeedna laga saaray ciyaartooyda xulka wadankaasi Brazil kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo horay raadis ugu jirtay daafac cusub si ay u adkayso kooxdeeda ayaa haatan ku khasban leeyahay in ay ceshato daafaca reer France William Saliba ka oo qarka u saaran inuu amaah ugu biiro kooxda reer France ee Olympique Marseille tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Mikel Arteta ayaa raadinayay saxiixa daafaca xulka England iyo kooxda Brighton Ben White waxa uu doonayay in ciyaaryahanka reer France William Saliba uu si xagaag kale uu amaah ku aado balse midaasi ayaa u muuqata haatan mid soo gabagabowday oo waxa macquul ah in ciyaaryahanka reer France uu ugu dambeyn chance u helo inuu xirto maaliyadda kooxda kubadda cagta ee Arsenal barnaamijkeeni galabtana waa inaginta